السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومدى الصومالي دمان ميلك ساجوكتان. waxaan dhawaan ka soo noqday magaalada Muqdisho caasimadda ummadda Soomaaliyeed. waxyaalaha aan ku soo arkay waxay u dhalay inay isweydiin horta magaaladan ma leedahay duq magaalo ama wax la yiraahdo afqaaf kala lagu yiraahdo mayor ma leedahay. waxaad arkaysaa magaalo markuu roobka da'o bulaacaduhu ay xirayaan meel kasta. tusaale waxa igu filnayd maalintan Muqdisho ka soo dhoofayay ayaan waxaan baabuuran wadanay baraado ah wadooyinkii waa marweyne ilaa xad laakiin waa iska soo qada jaxna iyadoo biyuhu ay meel aad u sareysa imaanayeen. airportkan u soconay muddo ka bacdi airportkii waa ku dhawaaweyne maxaa wadooyinka dhan bulaacado iyo biyo ayaa meel walba wada xiray. waxa ku qasbanaanay marka yar xamaali ayaa wuxuu yiri aniga lacag siiya waxaan wataba hal boorso iska ahay dabcan aniga lacag siiya boorsaas ana madaxa ma dhabar ka saaranaya ilaa iyo maxaa yiraahdaa airportka gudaha ana idin geynaya idinkana markaas wixii xaq ah saa u siiya. magaalada saas marka bulaacadu meel u yaalaan roobku markuu da'o ma aragtay xaaladeedu saas noqonayso maxaa yiraahdaa wadooyinkooda ilaamiyada marka aragto ay sida u jajaban yihiin iyo baabuurtii iyo bajaajlooyinka sida ay bajaajlayaasha iyo bajaajlooyinka sida ay maartay karkashin ay galeen aqraag diidayo waxa lagu leeyahay mayor ay leedahay. waxa lagu leeyahay canshuura guri kasta laga qaada. waxa lagu leeyahay islaamaha masaakiinta ah ee yaanyada iyo baradhada banaanka ku gada hadii ay diidaan inay bixiyaan canshuurta waxaa la geenaa saldhigyada qoraxdaas la tubaya waxaana leeyahay ilaa aad lacagtaas bixisaan ama aad cid damiina keentaan ama aad ballan qaada xilliga aad bixinaysaan qoraxda taagnaanaysaan waxa rabtiin ahaade. waxaa laga qaadayaa micnaha wax lagu sheego canshuur aan dib ugu soo noqonaynin. mararka qaarkood waxaa dhacaysa in la yiraahdo lacagta caadiga guryaha laga qaada sanadkii marka laga soo tago meel ayaan wax ka qabanayna ama buundaan dhisayna ama meel biyo galena biyo ka saarayna sida daraadid waa inaad bixisaan ala guri $500. lacagta marka laga qaadayo wixii lagu qaban lahaana ma loogu qabanayo mana diidi karaan. mararka qaar waxa dhacda project wax yar ku kacaya ayaa lacag waaweyn laga qaadaya si wax yar inta loogu dhoobo lacag fara badan ka soo harta jawaabka loogu shubto. macnaha ma canshuura waxyaalaha qaarkood lagu sheegi karaa mise waxa lagu sheegaa waxyaalaha maafiyada ay dadka ka qaadaan oo racketeerinka la yiraahdo. racketeering ilaan taxation waxa waaye waa wax laga qaadayo adiga lagu qaadayo jawaab gaar ah aan ku dhacaynin aad og tahay wax wanaagsan in lagu qabanayo. nasiib daro magaaladaas qashinka meel walba yaalo oo waliba laga qaado lacag qashina lagu qaada la leeyahay iyadan laga qashinka la qaadaynin. magaalada biyaha markay ay soo baxaan yani wadooyinku xirmayaan meel walba waxa ku leeyahay dhooqo iyo ur iyo wada noqonayso. magaalada aan lahayn waxa la yiraahdo isheeg drainage system aan lahayn iyo magaalada aan lahayn waxa afka qalaad lagu yiraahdo sewage system oo ah bulaacadaha musqulaha waxa ka soo baxa meel ay maraan. waxa igu yaabadnayd oo ku soo arkay Muqdisho oo dabcan dad fara badan oo tagay ama hadaba degan ee iyaga marqaati kacayaan hadii aad dabaq dheer degan tahay magaalada waxa laga wada taagay dad qurba joog fara badan aad timi oo hanti maal gashatay dad fara badan oo dawladda lacag fara badan ka dhacay ayaa boosas gatay oo dabaqad dheer wada dhistay يوم القيامة لما رأي يتطاولون في البنيان لدهي يحسوا فاني جروب كدير هاي ما قد دبق لا هي دبق قصاد استهماق انتو لقي هاي يا فانكو هاي لكن ما لها سويتش سيستم ما لها بلا عادها مسقولها وحكا صوب بحمال اي مران ما لها سيدا درادت دول كماركو روب دو ومال بابا بيئي بحسمان بلا عاديه هنا مسقولها هنا مال اي مران اي صن لهين اوركي وحقوصو نقنية قده waxyaalaha aan soo experience garay waxa kamid ah waxyaalaha aan tajriba ahaan aan maaragtay u soo arkay waxa kamid ah dabaqa degan tahay mesela waxa laga helaa dabaqay mesela lacag la bixiyo bishii oo wax walba yaalaan fully furnished ah marka roobku da'o meel walba bulaacada ka buuxsamaan meel ay ka baxaan aysan jirin
waxaa dhacaya marka masqulihii way soo shiirayaan gudaheena shuurka soo galaya wax iska weydiinaya malaha dabaqyadan faraha badan la dhisayo ee sidaan u wada dhaadheer ee aan lahayn meel ay musalaxa ka soo baxa maraan dhulkan maxay raadaan roobka markay aadka u da'aan meel walba biyaha buuxsamayaan meel ay maraan aan lahayn war waxaan maxaa ka dhalan kara maxaa ka soo socda dad ka fikiraya ama khitad u dejina habeeraata ma jiraan magaalada waxaad is leedahay war magaaladan meeyar ninka sheeganaya magaalada uu meeyar ku ahna sidaa u taalo ama ninka madaxweyne sheeganaya ee magaaladii uu caasimada ahayd ee la raba inay muuqaalka wadanka dhan noqoto sidaa u taalo may ummadda may inta xishoodaan mara madaxa garsada ummadda ka dhuntaan laakiin sideedaba waxaa waxyaalaha qaarkood garta oo ka sariigta qofka markuu sariigasho leeyahay madaxda iscasilaysa caalamka ee ummadda ka gambanaysa waa madax dareensan waxa ay tahay sharaf iyo karaamo waxa ay tahay waa dad dareensan ninka hadda maanta marka muqdisho meeyarka ka ah oo lagu tilmaamay inuu yahay ninkii ugu liitay waxa meeyar uu soo maray ugu liitay the most incompetent mayor wixii burbur ka dambeeyay waa ninka yani wax dhan oo meesha u jooga dabcan oo marka horan u jooga haddana loo soo celiyey oo xasan u soo celiyey wax kale maaha waa inuu yahay nin waxa yareed muqdisho dakhliga dalka laga siiyo percentage-keena laga siiyo nin lagu maamulan karo oo la yiraahdo wariyaa dhageyso wixii mushaarka loo bixiya maana wixii ka soo hara igama taaban kartid arrimo siyaasadan isaga xalinaya ama haddii kale yani apartmentada ka gadanaya Tanzania iyo Turkiga iyo Nairobi iyo waxa rabaan ku sameynaya waxa kaliya mana aha nin dhihi kara wariyaa lacagta waxa loogu talagalay muqdisho waa wixii ka soo gaaray dakhliga dalka inteeda badan wuxuu ka soo galaa muqdisho ka soo baxa meelaha kale in canshuur ciidu kama qaadee wixii ka soo baxa marka gudahan ku celinayna wadooyinkan u habeynayna mashaariic horumarineed u sameynayna war xitaa cala aqal wadada ka soo baxday airportka ee ilaa madaxtooyada timaada ee madaxda dalka soo booqanaysa madaxtooyada tageysa ay soo marayso ayaan inta dhisno aan ubaxyo iyo geedo iyo aan ku sameynayna nin dhihi kara maaha inuusan dhihi karinna waa waxa loo keensaday muqdishona sideedaba ayaamahan dambe meeyarka ugu roonaa waa tarsan ninka la dhihi jiray maxaa yeelay asiga xoogaa yar isku dadaalay oo maaragtay katarbiile iyo maxay rahdaa damdamisyo iyo darjiimooyin la dhisa iyo nin nidaam dowladeed wax un uga bilaaban ah laakiin ninka madaala la leeyahay markuu iska fadhiyo oo mushaarkaas la bixiyo maan wixii ka soo hara kooxdan xasan iyo kooxdiisa iska qaataan ayuu maaragtay ugu dambeyn wuxuu yiraahdaa war maxaan iraahdaa maxaan sameynaa markaasuu ul inta qaato gabdhaha iyo wiilasha liida joogo ayuu shaqo ka dhigtaayo u leeyahay waa the most incompetent ninka waxaan rajeynayaa in ilaahayna dhaafiyo isaga iyo kooxdan ayaxa ah ee wadalka la degay ee wax horumar aan keenaynin ee shaqadooda iyo waxa kaliya ay raadinayaan ay tahay in ay dalka boobaan oo kaliya meel ma lagu xiray maxaad maaragtay adiga sanadkii aad dhacdaa intee maaragtay dabaqe dhisatay wadan gudihiisa Nairobi intaas apartment ka jeexatay Tanzania ka waran Turkiga ka waran iyo wax lamida iyo dabcan qaar maraykanka naftarkiisa hadda article akhrinayay laga yaabo in dowladda maraykanka xoogaa si maaragtay gaar loogu dacweeyo oo maaragtay guryo lacagtaas la soo boobay ku dhistay ayagoo markoodii hore weligood intay maraykan joogeen iska ahaasan galmaadaro aanan maaragtay weligood shaqaysanin oo wax history oo shaqo aan lahayn maantana guryo gadanaya 900 ilaa 950 ilaa 1 milyan ku dhow guryaha inta ka gadanaya oo la ogyahay waxa qaab ay ku keeneen inuu yahay qaab musuqmaasuq su-aasha isweydiinta mudan qof walba oo reer muqdisho ay tahay inuu isweydiiyo waxay tahay war dalkan magaaladan muqdisho ma leedahay duq magaale mise nima isaga faano oo kaliya bilaa wax qabad la'aan anigu waxaan ahay meeyarka duqa magaalada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir dalkuse madaxweyne ma leeyahay haddii caasimadii uu dowladda degan sida u taalo ya oo aysan lahayn wax horumar aysan lahayn marka laga soo tago dadka private sector-ka ah in ay horumarka sameynayaan maxay la marka magaalada waxaad dareemaysaa in private sector-ka uu dhisan yahay laakiin public sector-ka uu qashin yahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.